haddaba intaynaan bilaabin waa inaad horta qorshe leedahay. Safar kastoo wanaagsan horta waxaa ka dambeeya qorshe wanaagsan soo maa. Haddaba waad aragtay dadkan TikTok iyo filimaanta iyo meelaha aad ka aragtid, dadkaasi waxay ku bilaabaan amba waxay isticmaalaan system gaar ah keliyata intay galaan jim birow ma qaadqaadaan ma soo baxaan. Markaad qorshahooda amba habkooda aad ku dhacdinaan waxaad u samaysmaysaa sidii vida haddaad nin tahay, dad gabarh tahayna sidii hourglass waxay saacadan Egyptianku isticmaali jireen berigii hore, dhexdana ka dhuuban inta kalena kala weyn. haddaba dadkan shaqadoodii waaba inay jirkooda wanaagsanaadaan, markaa irbado way isticmaalayaan lighting aba meelo sawiraantii ugu wanaagsanaadna oo laga qaadayo, angaladii ugu wanaagsanaadna oo lagaga qaadaya magaranaysa, oo maaha 100% sidii u eegayay maalintooda caadiga magaranaysa, laakiin waa macquul inaad jidh hagaagsan dee oo via amba hourglass aad samaysid. weliba ta ugu sii macaan adigoon jim gelin aba bira aan qaadinba oo gurigaaga jooga. vida amba hourglasska waxaa keenaya inaad muruqyo gaara awooddaas. haddaba nin ahaan awoodda waxaad saaraysaa waa gacmaha oo ah garbaha iyo gacmaha, muruqa hore iyo muruqa dambe, dhabarka weliba lats oo ah dhabarka intiisa ugu weyn ee balac samaynaysa, abs amba six pack muruqyada caloosha iyo lugaha. eeg muhiim xoog munusiya haddaan nin tahay, laakiin haddaad ka tegtid foolxumadii ugu weyneyd ayuu samaynaysaa jidhkaaga. markaa waa muruqa hore, lugaha iyo muruqa dambe iyo kubabka oo ah calfska. dumarkana wax badanba kagama duwana, gacmuhun baanad awoodda saarayn oo kuwa kaysiinaysaa nin magaranaysa, laakiin inta kale oo dhan waa muhiim inaad garaysid. weliba awoodda aad sii saartid gluteska muruqa dabada haddii adii loo adlo dumarku wuxuu doonaya inay xaggooda dambe weynaato magaranaysa, oo waxay qaarna barur iskugu kordhiyaanba waa inay intaa ay weyneeyaan, laakiin dhibaatada waxay noqonaysaa barurta markaad kordhisid dhexdiina way weynaysaa, markaa waa yaraa dhibaato. markaa waa gluteska oo awoodda ugu weyn aad saaraysid iyo lugaha intooda kale, latska iyo shoulderska in yar aad yara taabanaysid iyagana. markaa su-aal waxaa ah niyo dumarku maxay ku farayaan inay dee waxyaabahaas oo dhan awoodda saaraan oo dee muruqyada ay waaweynayeen. raggii dumarba sidii keliya tee macquulka ee dhexdaada aad ku yarayn karaysaa waxa weeyaan inaad inta kala weynaysid. inta kala weynaata waxay u eekaysiinaysaa dhexdaadu inay yar tahay. marka haddaad is leedahay Mr Olympiad noqonaysaayo muruqyo waaweyn baad dhisaysaa haddii aad amba aalamiiteer samaysid, taasi macquul maaha. aad iyo aadna waa nooga xumay markaas oo ragga testosteronka leh xitaa ayaana macquul xitaa aani u ahayn. markaa haddii aad doonaysa inaanad u ekaan bodybuilder weyn oo gacmihiisa iyo dhabarkiisa iyo waxyaabihiisa oo dhani ayaad aad u waaweyn yihiin, wuxuunbaa iska ilaalisaa irbad yaroo la idhaahdo terembolin steroidkaas ayay dadkaasi ku weynaadaan. markaa macquul maaha inaad adigoo gabadha aad muruq weliya aad ku dhistid degdeg oo dad beryara haddaba hadal badan kabacdi waxaan gelinahay exercise. muruqyadaynu awoodda saaranayna haddaad xasuusatid nin amba haddaad tahay gabadhba, awood saar waxaan u jeednaa celceliskooda amba inta jeeraynu ka samaynayno ayaynu badinaynaa, ka loo eego kuwa kale ayaynu ka badinaynaa. haddaba jadwaladu way badan yihiin, laakiin kan waxaa la idhahdaa TPL push pull legs, waa riix soo jiid lugo. waaba intaa muruq kastoo wax riixa maalin baa lasoo waracanaya, muruq kastoo wax soo jeediyana maalin baa lasoo waracanaya, muruq kastoo lugaha ku yaalana maalin baa laiswada raacanaya. taas waxay kuu saamahaysaa in muruqyada riixitaanku ay nastaan maalinta soo jiiditaanka, iyo muruqyada soo jiiditaankuna ay nastaan maalinta riixitaanka, iyo maalin gaara oo lugaha ah. eeg nasashadu aad iyo aad ayay muhiim u tahay, oo markaynu aalamiintaynayno amba wax culus aynu qaadayno, waxaa culus waxay kuugoynayaan amba ay jarjarayaan tissue wax la idhaahdo oo muruqyadeena ku dhex jira. tissuegaas markuu googo cuntadii iyo nasashadii iyo hurdadii ayaa u saamaxaysaa in lagu bedelo tissuegii kala go-ay kaloo kasii xoog weynkii hore. markaa nasashadu aad iyo aad bay muhiim u tahay. iyo waxay si yaro degdega haddaad u baahantay kooras aan kugu soo koobiyo wax kastood u baahantay si aad degdeg ugu gaadhid hadafkaaga, aan ku caawiyey naftayda iyo dad kaloo badanba. waxaad ka eegtaa commentka ugu sarreeya ee videoga. aynu kusoo noqonnaa haddaba videogeeni caadiga. horta intiina bilaabin waynu dhowr shay sii sheegnaa. kow horta inaad si saxa aad u samaysaa oo foomkaagu uu sax yahay markaad exercise-kii samaysid. haddii kale wuxuunbaa kugu dhacaya amba injury amba lafaa ku jabi karaysaa, amba adigu dee wax wanaagsan oo ka yimaata foom khaldan maba jiraba. si wanaagsanna uma geedayso muruqa aad doonaysid.
laba waa inaad gaarsiisaa xanuunka amba inaanad ka baqan xanuunka oo weliba aad daafisid xanuunka markaad dareetid xanuun aad daafisid ilaa intaanan xabad kale aanad samayn karin haddii kale ha farqi waad arki doontaayo ilan adigan exerciseka samaynayo tacabkii gelinayo dee maalin walba wixii samaynaya markaas ha tacab waad helaysaa laakiin tacabkaad heli doontid markaad xoog aad isku gogoysid uma dhigmiso iskumana dhowaanayaan yacni farqi waxaan u jeedaa 3 sano qof caadi si yaro naftiisa u waday iyo qof xoog isku gogoynaya sanad ayaa isku barbar dhigmaya markaa waa yar dhibaato inaad xanuunka markaad dareentid aad iska joojisid oo tiyaadid xanuunkan dareematid xaggaasaan ku joojinaya markaad intaa dhamaysid ta saddexaadna waxa weyaan inaad nasatid inaad siisid jirkaaga waqti uu ku nasto sin inkoo kale hadad aanad nasanba oo markaas uga soo baxayso sidaa intaa isku gogoysay ama markiiba haddana aad ku noqotay uma samaynaysid saad u samayn lahayd markaad nasatay oo intaad samayn lahayd hataa uma dhaweynaysid markaa nasashaduna waa muhiim 1 minute ilaa 1 minute iyo badh meelaha ilaa intaad adigu ka dareemaysid nasasho wanaagsan inaad heshay oo dareemaysid inaad dib u geli karaysid iyo tii afraad oo ahayd tii ugu dambeysay kala baxa muruqa inuu iskiito muruqu wuxuu kuu saamaxaysaa inaad ogaatid inaad exerciseka samayso sax yahay inaad qalad yahay teeda kale inaad kala bixisan muruqa waxa weeyaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee kordhinaya amba aad u weyneynaya marka loo eego dhex ka soconitaanka amba inaad dhamaystirin hadalkaa badan ka bacdi exerciseka koowaad ee lagu horeysinna waa chest haddaba haddaynan doonaynin inuu injury nagu dhaco amba dhaawac xagga garabka naga soo gaadho waxaynu samaynaa warm-up on muscle leg haddayn doonanin miisaan waaliya aynu ku bilaawayno baalaha yaree madmadooyinka arkaysaa kor bay u qaadaya meesha saarisid kacbaha magarasa laakiin haddaad haysannaas kalifin 2 buugu soo qaad oo kuu saamaxa iyaguna islaa sidii inaad samaysid gacmaha sidaan leeyaynaa waa iyaduna warm-upkiyo waxay noo samaysaa inaynaan ka jabin horena waanun uga dhaawacmee gacmaha intaa yaree ugu horeysa iyada iyo exerciseka labadu waajibo haddaba exerciseka bilaabna oo push-up ugu horeeya eeg iminka haddaad u fiirsatay labada buuga meesha yaala kala baxa inabaan caadihayn bay usii soconeen iminka haddaan labada gacmood dhulka aan dhigayo yarba dhexa ka soconayo masamaya haa aad bay yar fududay laakiin waxay yara adkeynaysaa labada buug ee meesha dhigay waxay ka dhigayaan dee si weli isku kajiyeysa tastan haddaba haddee aanad samayn karin push-up amba maan samayn karin bilowgii oo dhane waxaad ku bilowda gidaar amba meel yara saraysa oo kuu saamaxaysa inaad soo yara fududaysatid haddii uu miisaanku kuu fududayay oo arkaysid inaad dee soo fududaana kolba miisaankii oo daafin karaysid 12 mar walbood daafisid miisaanka kordhi miisaanka hadda waxaa ku kordhin karsaa sandaduu soo qaad ugaa ka buuxi amba kuwinaaramid xagga dambe higaga fadhiiso kudhi intaa waxaa sameynaysaa 8 jeer waxaad ku garan karaysaa in miisaanku fududayay in kalena haddii aad gaarsiisid 12 haddaad gaarsiisid miisaankaasi aad kuu fududayay kordhi markaad samayn kari weydo 12 oo 8 dirtiya aad samaysid halkaas ayaad ku garan karaysaa in miisaanku wanaagsan markaas 8 xabad intaa sameynaysaa 4 jeerna waad ku celinaysaa markaa 8 jeer oo 4 jeer ku celina haddaba waa exercisekii labaad haddaad isleedahay toddoba la taagaya muxuu markaas videoga arkay magarasa laakiin just waxay u qaybsataa laba just sare iyo just hoose clavicle head iyo sternal head ayuu qaybsataa laakiin bodybuildada waa ku idhaahdaa ku dhexe iyo ku hoose iyo ku sare saddex bay u qaybiyaan ku gudeed iyo waxyaabo aan jirin ayay sameeyaan qaar hadda intay jidhkoodu leegyaho murugada intooda leegyaho haddana waxaa aaminsan jiraan magarasa laakiin haddaynu kala jeexno jastaada oonu eegno labadaasun bay qaybsataa ta sare ta hoose maaha waxaan idhi waxay baaritaanada iyo dadkii dee wax qaligii caadi waxaan u erkayay ay yidhaahdeen maaha waxaanuuska yidhahdeen markaa exerciseka markii la yaabanayn wuxuu ahaa upper chest push-upta caadiga ee toosan waxa weeyaan lower chest markaa haddaad doonaysa inaad upper chest ka dhigtid waa inaad dabadaada amba halkaaga dambe ay ka yara sareeyaa madaxaaga oo uu jidhkaaga dambe uu ka sareeyaa madaxaaga haddaba waxay dhibaatadu noqotay haddaad samaynaysid push-upta noocana madaxaaga ayaa gaarayaa dhulkii intaanay kala bixinba jastii kala bixii ma hasuta markaynu ka hadlayna kala bix waa muhiim markaa ma kala baxayso oo meel yaro dhexaad ka soconaysaa waxa saas kugu yar qalloocinaya markaa waa yaraa dhibaato markaad samaynaysid oo dhulka aad si caadiya ugu samaysid haddaba taa xalkeedu waxay noqonaysaa inaad 2 shay oo aad u yara dhaadheer inaad soo qabatid oo labadaa aad ku samaysid inkoo kale 2 shadadood aad imika arkaysid 2 shadadood waxay saamaxayaan inaad kala bax inaba aan caadiyahayn aan helo
si fiican aan exercise-kii amba calamitadii aan si fiican u sameeyo markaa ay justii sare si fiican loo gasho sidii caadiga ahayd 8 jeer oo 4 celcelis leh haddii uu miisaanka gaarsiin karaysa 12 dhaafin karaysa miisaanka kordhi oo 5 xidho walba sida ku kordhi karaysa laga garanayo haddii ay adkaatana sidii tii horun fuudayso meel sare anuu waxaan ugu jeclay weliba haddii upper chest noqoto kursi inaan ku sameeyo kursigu laba baal buu leeyahay ku saamaxayna stretch kariisin magaraasa labada meeloodee la qabsanayo si yaro macaan ay ugu stretch karaysa haddaba muruqii ku xigay oo ah kaan ugu jeclaa dhabarku waxa weeyaan muruqii ugu muhiimsanaa waa kii ku kala bixinayay oo siinaya balcad u baaneed haddaba sin u sameyn dhabar waxaad u baahan tahay shandadii sekadariga isticmaali jirtay maslahayd noloshaada dib dambayso oo ugu noqonaysa iyo bugaagtii aslahayd noloshaada dib dambayso ma isticmaalaysid laakiin maanta waxbay ku tarayaan badan haddii aad tuurtay maalinta sekandariga ku baxdo farxad heeraad gaadhay meel ka tuurtay oo caadi wuxuun bay u baahan culays amba dhagaxaan amba waxuunde wax culays haddaba shandadii baa soo qaadaysaa oo say qoloconaysaa oo soo jeedaysaa culays aad ka samayn karaysa 8 jeer oo dirqiya adna samaysaa halkii minid arag ninkaa weynee caruusada ku ciyaara ilaahay baan kuu dhaariyay laakiin adugu muhiimada waxa weeyaan nasatadu haddana waad ku noqonaysaa haddaba culays kunbaad yaro kordhinaysaa maadaamuu yahay dhabarku kuwiina awoodda saarani haddaba tii hore waxay ahayd upper back oo row baa la yidhaahdaa tan haddaba waxaa la yidhahdaa pull up oo ah tii ugu muhiimsaneedee samaynaysay balcaca tii laadska dhisaysay haddaba sidaa u samaysay pull up amba sidaas ku qaatid waa inaad soo heshaa meelaad ku samayn karaysid exercise-kii haddaad bir heshid aad ba u nasiib badantay sidoo kale haddaanad helina gidaha nuskaga samee waxaaga dhimala haddaanad haddaba ka jari karayn pull up amba haddaanad isqaadi karayn laba sababoodun weeyaan amba culayskaaga aad u badan amba muruqaaga ayaan qaadi karin jirkaaga siduu qaado haddaba jirkaaga muruqaagu waa inaad samaysaa exercise-kii hore haddaad xasuusatid exercise-kii ood ku noqon karsaa haddaana xataa xasuusanayn exercise-kii hore ayaad u samaynaysaa gacmahaaga oo isku dhow gacmahaaga isku dhow waxay taarget garaynayaan amba awoodda ay saarayaan laaska hoose gacmahaagu laakiin markay kala fog yihiin ay ku siman yihiin garbahaaga waxay taarget garaynayaan amba awoodda ay saarayaan dhabarka intiisa sare haddaba pull-up muruqa ugu weynee isticmaalaysa waxa weeyaan laaskaaga oo ah ka hoose markaa waxaad samaynaysaa gacmahaagu isku dhow ayaad ku celcelinaysaa oo exercise-kaas xaggaad pull-up ka samayn lahayd ilaa intuu kasoo xoog weynaanaya muruqa oo samayn karayo pull-up amba isqaaditaan ayaad samaysa haddaanad samayn karin weeyaan haddaad samayn karaysidna dee ugu baahanaysid baa intaan oo dhan haddii miisaankaaga xagga ka baxsayna horta sida caadiga de waxaa rajaynaya inaad miisaankii aad goynaysid magaraasa laakiin maadaama laadku yihiin kuwiin awoodda saaranay sida caadiga celcelinta waynu dheerayna amba waynu badinna muruqii ku xigay oo ah kuwa ugu muhiimsan haddaad nin tahay weeyaan haddaad nin tahay oo gacmaha weeriiriin bro wallahi wax allaali wax khaladoo ku jira ina gacmaha weeraada ma jirto laakiin aduu way wanaagsanaan lahayn haddii ay weynaan lahayn gacmaha waxaan ku horeysiinaynaa garabka hore waxaa soo qaadaysaa shandadii korun baad u qaadaysaa sidaas aad dinka video gaarkiis waxaa samaysaa 8 jeer oo aad u xanuunade iyo garabkii dhexe isagoo keeri muhiimsan garabka hore sababtoo ah kii balcansiini weeyaan hore isku yar qoloconaysaa dhinacna shandada waad u riixaysaa markaa waxaad ka samaysaa xaggad kii hore ka samaynaysay celceliskiisa 4 jeer kan celceliskiisu waa 6 ilaa 7 8 kolba adigu intaad waqtiga weynayso haddaba muruqii dambe oo gacmaha muruqeedii dambe waa push up laakiin aad gacmaha isku soo dhaweynaysa sidii caadiga haddii kuwa adagtay lugaha kor u qaado amba gidaar amba kursi kolba kaajaasho haddaba exercise-ka waxa weeyaan shadadii unbaa soo qaadaysaa xagga dambe intaas ka maraysay unbaad kor u qaadaysaa waaba intaa kunkaa wejiyada darka sidaan samaynayo way wanaagsaneen haddaan u samaynay kamarada darteed laakiin wallahi shan waa wadacad waa inaad xanuun darteed aad samaysaa wejiyanaad u diri karin gabadhaad correctionka siinaysa haddaba exercise-kana waa muruqii hore haddii aad u fiirsatay intii hore oo dhan horta waan dedejinayay fiiriyada magaranaysa waan yaro gaabinaya si aan kuu tuso intay tahay amba intay qaadanayso inaad samaysid hal reeb amba hal jeer inaad samaysid inaad dedejin sii socodka amba inaad gaabisid sii socodka waxay kuu saameynaysaa inaad dhaawac kaa soo gaarin haddii uu dhaawac kaa soo gaarin horta kolley waxaan u samaynay caafimaad ahaan keliya ta maaha inuu aad dhistid jir qurux badan oo soo jiidinaya dumarka amba jir qurux badan oo soo jiidinaya ragga inaad samaysid keliya ta maaha inaad dee waxaan aad sii samayn karaysa waxaad u arkaysa dadkan ka hadla calaamitada yidhaahdaa iyo waxaan wuxuu keenaa inaad laftu kaa jabta iyo inuu cumri degdeg kugu dhacayo inaad
cayayantid iyo dadkii waxyaabahaasoo dhan ay ku dhaceen horta kow si xun bay waxaan u samaynayeen waxyaabaha inay qaataan bay qaadanayeen waxyaabahaasoo dhan baa kalifay inay hadhow aanay noloshooda sii wanaagsanaan garanaysaa laakiin haddaan waxaan si careful oo macquula aad u wadid of course wax allaale wax dhibaato ka arkaysaa ma jirto haddii aynu imanno haddaba intii hoose gabar ahaan aad iyo aad bay muhiim u yihiin laakiin nin ahaan saa uma sii muhiim aha laakiin waxaa waajiba inaanay yaraan haddii yaraadaan waxay fool xumaynayaan jirkaaga oo dhan haddaba lugayga kayaa dan caadi u fadhiista ma garanaysaa dhibaatada iga haysta weyaan haddii lugaagu caadi aad u fadhiisan karsid adigoo lugahaagu amba dhibahaagu aanay kicin waa caadi saa kuwad laakiin haddii ay kacayaan laba buugo amba dhowr buugo kuu saamaxaya inaanay kicin ayaa soo qaadanaysa haddaba exercisekan koowaad waxaa la yidhahdaa squat amba kaca fadhiisigii caadiga oo weliba luguhuna ay isku dhow yihiin lugaha inaad isku dhawaysa waxay kuu saamaxaysaa inay taarget garayso amba awoodda aad saatid muruqa hore ee lugta haddii sida caadiga aad daafin karaysid 12 miisaankaaga caadiga dee 50 soo qaad exercisekana waa gluteska iyo hamstringa waa muruqa dabada iyo muruqa dambe ee lugta sida caadiga awoodda ma saarsa haddaan nin ahaan nin aad tahay ma garanaysa laakiin dumar ahaan bro like kii ugu muhiimsanaaba inaad saysyada dhanba kanba ugu muhiimsan si khalada haddaad u samayso unbay dhibaato yara tahay laakiin haddii aanad lafta jabin oy toosan sidaad iminka arkaysid inaanad lafta jabin unbay muhiimada tahay oo toosisay dhabarkaaga haddaba kani uu yar adag yahay laakiin haddii aad baratid oo aad la qabsatid la qabsiguna waxa weeyaan inaad ku celcelisid oo maalinta saddexaad ilaa maalinta afaraadba si fiican waa la keenaysaa lug baad saaraysaa meel lugta kalena dhulkay kuu joogaysa haddii kale laba lugood saartid meelood duubaysaa weeyaan macnaheedu markaas taas macquul maaha sida caadiga laakiin lug baad dhulka dhigaysaa lugna meel baad saaraysaa lugtaasaad ka shaqaysanaysaa waxay gelaysaa lugaha oo dhan ay kuu saamaxaysaa inaad isku marun hidgaraysid amba isku marun aad taabid nin haddaad tahay allamad waalanta sidee dabo iyo muruq dabadeed iyo waxaa uga hadashaa waalanta dabada waxa weeyaan waa garabkii jidhka haddii garbuhu aanay gacmahaaga aanay ku jirin foolxumadii ugu weyneyd weeyaan maraha laakiin markaa macnaheedu xoog u weynay haddaad nin tahay ma garanaysaa laakiin inaad wax aad ku fadhiisatid lahaataa dee waa yar waajib exercisekana waa kaniinkii faarax lagu baastannimada waxa weeyaan muruqii ugu hooseeyey ee jidhka islaamaha qaar way iska leeyihiinoo dee kubabkooda in naba caadi ahayn u weyn ma garanaysaa si aan naba caadi ahayn u weyn ma garanaysaa laakiin haddii aanad u dhalan dee waxay noqonaysaa inaad u talin garaysid haddii laakiin aad leedahay oo leeday iyo wax allaale waxaan ku falayo exercisekan ma jirta sababtaa kubabkaygu aad bay waaweyn dee anigu wax allaale waxaan kaa odhan karayaa ma jirta badan ilaa aad wax noo gooday bro like markaa waaba intaaba videoga haddii aad si un isku lahayd dee jimu mooyaane si kale dee laguma dhiso wax allaale waxaan ku gaadhayo guri ma jirto waxaan rajaynayna videogani si uun kaaga jawaabay su-aashaas laakiin aniga horta ra'yigayga halka ugu wanaagsan waa jimka sababtaa iyo dad badan baa joogo ku bushgaraynaya ku riixaya asxaabtabaad u yeedhi karaysa waad xaraabisan karaysaan waxay kusii jeclaysiinaysaa alaminto wax la idhahdo amba dee fitness oo dhanba laakiin maaha meesha keliya tee muruq aad ku dhisi karaysid amba jirkaaga aad ku wanaajin karaysid haddaba video dhinaca dietka amba xagga cuntadaana waan ka samayn doonaa waa waajibade haddii aad jirkaaga si uun doonsi inaad u hagaajisan inaad xagga cuntada iska hagaajisan garanaysaa sida haddaba ula socotid subscribe kaa taabo siduu kuugu soo dhigo video youtube-ku markaan soo dhigo videoga dhinaca dietka amba cuntada amba video noocan oo kale